munaasibadan oo ahayd mid hanaankeeda dhicitaan si hersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalin jabinayeen arday tiradooda gaadhaysa 25 arday islamarkaana ka qalin jabiyey markaska Daarul Qur'aan ee magaalada Burco. Munaasibadan ayaa waxay ka qabsoontay Masjidul Al-Furqaan ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka Togdheer, maamulka markaskaasi, waalidiin iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. Waxaana ugu horeyntii halkaasi hadal ka soo jeediyay maamulaha guud ee markaskaasi oo ka warbixiyay marxaladii kala duwan oo soo maray markaskaasi isla markaana sharaxaad dheer ka bixiyay hadda xaaladda uu ku sugan yahay markaska, isagoo bulshada gobolka Togdheerna ugu baaqay isla markaana ka codsaday inay ka taakulayaan kana garab galaan sidii uu markaskan u heli lahaa dhul isagu gaar u leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الجديد حفلة مباركة الأسبوع من الأسبوع من أعطينا ما يستطيع القرآن الكريم كا يبتدأ شن يلواتن أعطي حفلة شن يتوبنا أنا قررنا لما كل سياركي لا ما تقول شو لما كل سياركي طبعا وتوصل وحبدي شغلة الله أنا قررنا كراهان وعدني أبو برنامج هالمر حفلة لوسم اليوم عملنا هاي أعطينا أبراك لما يصير قرانكي لفظ جيسي مرجع كوران يا دميسل طبعا أخبار باكوتشرة خرب باكوتشرة إن القرآن في سحلان وتحفظان وتكد الأشياء وتعب كيه وركبر الأد لسان أيام iyaguna halkaasi hadal iska daba qaatay culimada iyo waxgaradka gobolka Togdheer ka soo qayb galay munaasabadaasi, waxaanay ardayda u soo jeediyeen hadal la dardaaran iyo duco badan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxay markaska Daarul Qur'aan ee magaalada Burco. إلهي عبد سما شرفي ما مصبر كيري إنت عم تدالو قرانك أولادك كل تدالو عين والله إنت المادي يقولينه إنكم شرلات كذا قالينه قبر يقولوا أنفعيا وقيامه يقولوا أنفعيا وإلهي سلطان يقولوا أنفعيا وأدوية يقولوا أنفعيا وآخرة يقولوا أنفعيا ووحوه إلهي به سبحانه وتعالى وهما إلهي بالقصير سبحانه وتعالى إنتنا كل تدالو وقرانك كل تدالو وهم الدارات عاصمه سيدا درات الماء يا قرانك ما أنت مركل حديثي وعلى علم القرآن في شريعة لبعض أنت بعد بين بريك معلومات هذا كان يسا هو الله وعشرة القرآن القديم تكتب العشرة وبدن كيس القرآن هو يلمعين لكن سعاوي القرآن كي لك بدأ بنتك القرآن كي لما تفتين ما تبادت وريرين نظام كلام وريرين بيع كلام صعوده معلمين كلام مقالة شرطة وريريسا ومعلك بشرة حرام دين تدخل كذا هيسا ومعلم وياه مركز دار القرآن oo ka mid ah maraakista mu'assasada aflax oo runtii qayb weyn oo muhiim ah ka qaadata tayeynta iyo wax soo saarka iyo abaabulka tarbiyadeed ee markaa ardayda. waxaan leeyahay munaasabadani waa munaasabad aad iyo aad u qaaliya runtii. waxaynu joognaa bowcada ilaahay bowcadii ugu qaalisanayd ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay oo masaajidada ah nebiguna sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay. waxaanaynu isugu nimi oo ku kulannay qowl lagu hadlo qowlkii ugu qaalisanaa oo aynu samaysiinayno oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii. ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana ikhlaasa idinka yeelo, camalkiina aqabanaysaana camal saalix allah idinka yeelo. inteena kale soo xaadirtayna ilaahay subxaanahu wa tacaala talada iyo tawfiiqda wanaagsan allah ina waafajiyo. Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaabe, telefishinka caalamiga ee Ariel, magaalada Burco.